قدر الله تقسيم الصومال هذا خط أحمر لا يمكن السماح به، لأن كما ذكرت الصومال دولة عربية شقيقة ودولة إفريقية شقيقة أيضا. أعلنتم أكثر من مرة أن مصر لديها رؤية واضحة للتعامل مع السد الإثيوبي، لكن أخيرا سود هذا نكان أداونيسان waxaan u malaynayaa wejigiisa idinkuma cusba in badan oo idin ka mida xaaladda gobolka geeska Afrika markii ay socotay ninkan si fiican ayaad u aragteen fagaarayaal badan ayuu ka soo muuqday dood fara badan ayuu qadiyadda geeska Afrika ka galay isla markaana in badan ayaad aragteen isagoo difaacaya madax banaanida iyo wadajirka Soomaalida. waxaan rabaa si fudud inaan ninkan kuugu sheego waa wasiirka amuraha dibadda dalka Masar waxaa lagu magacaabaa Dr. Batri Abdilcaadi waraysi ayuu waxa uu siinayaa telefishinka Al Arabiya lagu magacaabo waliba barnaamij dooda ah oo waraysiyo ah oo su'aalo kulul ayuu markaan wajahayaa waxaan rabaa ninkan hadal culus oo weyn oo bulshada Soomaaliyeed qaar haddii ay maqlaan ay aad u la yaabi doonaan ayuu jeediyay waxa uu leeyahay Soomaaliya kala qaybinteeda waa qad ahmar Soomaaliya in la kala qaybiyo waa wuxuu leeyahay diilin cas mana la aqbali karo sidoo kale waxa uu leeyahay Masar taasi waxa ay ka xigtaa inaan la aqbali karin oo waliba wax kasta oo Soomaalida wadajirkeeda aan ku badbaadinayno ayaynu samayn doonaa hadal kale ayuu jeedinayaa oo xiisiisa leh iyo sirta ka dambaysa in madaxweyne Xasan Sheekh Masar ay rabto markaan inay la shaqeyso Masar waxay leedahay annaga ujeedkeenu waa Soomaaliya oo haykalkii iyo qalfoofkii dawladnimo uu dhismo hadafkeeda yoolkeeda rabitaankeeda iyo ujeedkeeda halka uu daaran yahay ayaad ku ogaan doontaan barnaamijka Barrow Show waraysigan Ethiopia ayaa dhinaca kale weerar culus oo ay Masar ku qaadaysaa oo aan waliba waxba loo reeban oo qayaxan oo banaanka yaala waxa laga hadlayaa badda cas Ethiopia waxa la leeyahay fariin kulul oo culus markan gudooma warkan ayaan rabaa inaan idin sheego barnaamijka Barrow Show ayaa daawanaysan saaxiibayaal waxaan ahay Cabdilcasiis Barrow si aad taxliil iyo warar dheeraad ah oo ku saabsan geeska Afrika iyo Soomaaliya u heshaan ha hilmaamina YouTube-kan inaad subscribe tiraahdaan isla markaana aad share gareysaan muuqaalka qaybta hoose aad aragtideena iyo commentigeena ku soo qortaan waliba waxaad soo bandhigtaan ama halkan aad ku cadeysaan Masar daacad miyay ka tahay Soomaaliya inay garab istaagto maxayse tahay arrinta ay ku soo celcelinaysa ee la fahmi laayahay haddii aad ila socoto ilaa muuqaalkan uu dhamaanayo qaybta dambe ayaan kuga ogeysiin doonaa oo aad ku fahmi doontaa wax badan oo ka qarsan soo dhawaada ayaan idin leeyahay saaxiibayaal barnaamijku waa Barrow Show nala jooga waqti badan waayahay waxaan filayaa qaybtii hore ee barnaamijka inaad si fiican u daawatay waxaan rabaa meeshan xog fiican ayaa ku jirta ee Masar hadalkeeda inkasta uu diblomaasiyaysan yahay haddana xog baa ku jirta dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxdeeda wasaaradda amuraha dibadda haddii ay si fiican u fahmaan ujeedooyinka Masar iyo waliba waxa dawladda madaxweyne Xasan Sheekh ay la raadinaysaa aad fahmi kartaan waraysiga ayaan rabaa mar kale inaan ku shido halkan si fiican u النقطة الثانية أيضا هو بالتأكيد التمكين الصومال والحكومة الصومالية من بسط سلطتها على كامل التراب الوطني الصومالي والحيلولة تماما دون اقتطاع أي جزء أو لا قدر الله تقسيم الصومال هذا خط أحمر لا يمكن السماح به، لأن كما ذكرت الصومال دولة عربية شقيقة ودولة إفريقية شقيقة أيضا. أعلنتم أكثر من مرة أن مصر لديها رؤية واضحة للتعامل مع السد الإثيوبي، لكنكم لم تعلنوا عن هذه الرؤية. يعني الآن مصر waxa ay ku dadaalaysaa in Soomaaliya ay ka taageerto ilaalinta madax banaanideeda iyo wadajirkeeda dhuleed inta kuma ekeen waxa uu sidoo kale leeyahay Masar waxa ay markan focus ka saaraysaa ama ay ku dadaalaysaaba in Soomaaliya ay ka adkaato kooxaha argagixiso ee daashaday isla markaana dalku uu noqdo mid haykalkii dawladnimada ay u soo laabato waa Soomaaliya isla markaana guulo waaweyn la gaaro arrin kale oo xiisale ayaa halkan ku jirta waxa uu leeyahay kala qaybinta Soomaalida
iyo weliba soomaaliya waa qad axmar diilin cas ayaa halkan saaran oo masar marnaba ma aqbali karayso warkiisa uu sii socdaa mar kale waxa uu leeyahay annaga waxaan rabnaa dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya dowladnimadeeda inay noqoto mid nidaamka dowladnimada uu meel kasta ka shaqayn karo dowladda gacanteedana meel kasta ay gaari karayso dowladda soomaaliya ay ku filnaato xuduudaha dalka inay gacanta ku soo dhigto amarka dowladnimada iyo sarraynta sharcigana soomaaliya uu ka shaqeeyo halkaas waa meesha masar ay u socoto ayuu dr batri cabdilcaadi leeyahay halkan waxaan u malaynayaa hadalka si guud aad u fahamtay laakiin nuxur badana ku hoos jira imow soomaaliya dowladda federaalka ee soomaaliya sida aad la socotaan marka laga hadlayo siyaasadda gudaha khilaafaad fara badan ayaa ka jira oo maamulada puntland oo hadda dagaallo adag kula jirta daacish guulo badanna ciidamada puntland ay ka gaareen dagaalada oo kooxii argagixisada la jabiyey dowladda federaalka ee soomaaliya isma hayaan oo khilaaf ayaa halkan u dhexeeya hadalkan rabnaa inaan ku xirna si fiican ula soco jubbaland maamulka axmed maxamed islaam uu hogaamiyana dowladda federaalka ee soomaaliya isma hayaan weliba muqdisho waaran ayay u jirtay axmed madoobe oo ay leedahay waa in lasoo qabto wuxuu ku xadgudbay hanaanka dowladnimada soomaaliya heshiisya dowladda uu saxeexana waa uu ka hor yimid laakiin masar maxay leedahay innagu waxay leedahay waxaynu ka shaqaynaynaa sidii gacanta dowladnimada soomaaliya ee muqdisho meel kasta oo dalka ah ay u gaari lahayd isla markaana nidaamka dowladnimada uu u noqon lahaa mid faafa oo guud ahaanba dalka soomaaliya camima hadalka masar waxay sidoo kale ku leedahay kala qaybinta soomaaliya waa diilin cas masarna ma aqbali doonto in la taabto hadalkan si fiican u fiiri kala qaybinta soomaaliya iyo kala jarjaridda dhulkeeda ma aqbalayna ayay tiri halkan diilin cas ayaa naga saaran ciddii arrintaas samaysana waxay ku xadgudubtay siyaadada ama sovereigntiga ama gobonnimada soomaaliya sidaa daraaddeed masar ma aqbalayso hadalkan marka waa kii ugu cuslaa oo masar inta gobolka xaaladiisu ay sidan ahayd ee jeediso dowladda federaalka ee soomaaliya masar heshiisyo fara badan ayay galeen waraysigan wuxuu imaanayaa maalin kadib ama dhowr maalmood kadib markii madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ka soo laabtay magaalada addis ababa ee dalka ethoobiya isla markaana rajiimka isgadgadiska badan sida lagu tilmaamo abiy axmed uu halkaasi kulan kula qaaday waa ra-iisul wasaaraha etoobiya labada dhinac waa soomaaliya etoobiya waxay ku heshiiyeen in dib loo soo celiyo heshiiskii ama qaanuunkii diblomaasiyadda ama haykalkii diblomaasiyadda iyo xiriirkii labada dowladood dib loo dhiso lana soo celiyo isla markaana la abuuro kalsooni midnimo leh oo labada dhinac ay ku wada shaqayn karaan sida ku qornayd war-saxaafadeedkii ka soo baxay addis ababa ee labada hogaamiyaba ay soo wada saareen laakiin taa wax ka duwan masar waxay wadaa dadaaladeedii ugu xooganayd waxay adduunka ka qaybeen ay ka gadaysaa weliba madaxda gobolka fagaarayaasha warbaahinta ay la hortaagan tahay innagu waxaan ilaalinaynaa midnimada iyo wadajirka soomaalida waxaynu diidaynaa in soomaaliya lagu xadgudbo halku dhiggaasi ayay si aada masar u qaybinaysaa dooda masar ay hadda wado waxaa horay u waday sanadkii 2024 aynu ka soo gudubnay dowladda soomaaliya iyo gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo lahaa dalkan laba cadow ayuu leeyahay mid waa kooxda shabaab ee argagixiso ee dagaalada looga soo horjeedo iyo kuwan hadda puntland ay la dagaalamaysa ee daacish cadowga kale waxa uu ku sheegay dowladda etoobiya oo doonaysa qaybo ka mid a dhulka soomaaliya inay boobto hadda khitaabkii ama hadalkii dowladda soomaaliya waxaad moodaa inay jiho kala geysay laakiin isla khitaabkii masar ayaa fagaarayaasha diblomaasiyadda iyo warbaahinta horteeda la taagan sida wasiirkeeda amuuraha dibadda dr batri cabdilcaadi uu ka dhawaajinayaba halkan waxaan u malaynayaa faham badanaad ka qaadatay ma masar ayaa heshiiskii la galay weli ku dhegan waa dood taagan mase dowladda federaalka ee soomaaliya ayay wax iska bedeleen waxaa la eegi doonaa maalmaha soo socda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gaari doona magaalada alqaahira ee caasimadda dalka masar waxaana uu la kulmi doonaa dhiggiisa dalkaasi genaraal cabdifataax al-siisi xaaladda gobolkana miiska ayay saaran tahay oo mar kale ayaa laga wada hadli doonaa ninkan odaga ah batri cabdilcaadi
intaa looguma simin waraysiga waxa uu ahaa mid saaqin ah oo aad u kulul waxa wax laga weydiinayaa arrimaha gobolka iyo weliba khilaafka dowladda Ethiopia kala dhaxeeya waxa uu yiri Masar kama gorgortamaysa difaaca biyaha Ethiopiyana halkaas inay timaado uma ogolaan karayso oo qadiyada amniga qowmiga ah ee Masar ayaa halka ku jira waraysigan marka waxa uu ahaa mid waqti badan la geliyay fariimo badan gudbinayay isla markaana u baahnaa faham badan in la bixiyo xitaa telefishinka loo doortay in la dhaxmariyo ayaa waxa uu yahay telefishinka العربية سكلا ربعنا قوتوسو warbaahinta waxay eebisaa waxa la yiraahdo siyaasadda dawladahooda ay gadayaan abuuraha dibadda telefishinka Al-Arabiya waxa uu inta badan aad u gadaa siyaasadda abuuraha dibadda ee Sacuudiga iyo tan Imaaraadka Carabta isaga Sky News Arabiga labadaba aad ayay siyaasaddaas u gadaan labadan dawladood inkastoo Sacuudiga ay aad dhakasho ugu jirta arrintan gobolka geeska oo aanay afkaarteeda iyo waxay banaanka keenin inkastoo ay hore u sheegtay kala qaybinta Soomaaliya inaan ay aqbali doonin diblomaasiyad ahaan Soomaaliya ay taageersan tahay haddana siyaasadan marka la yiraahdo Imaaraadka waxay aad ugu dhaweyd dhinacan iyo waliba Ethiopia oo aad ogtihiin in Ethiopia heshiisyo ay la galeen DP World oo dekedaha Soomaaliya qaarkood ay rabeen in ay maalgashi ku sameeyaan waliba dhinaca Somaliland haddaba dooda Masar aad ayay u adag tahay laba su'aal marka halkan ka imaanayso oo si weyn loogu baahan yahay qofka Soomaaliga inuu isweydiiyo maxaa Masar xilligan oo aad moodo xiisadii gobolka inay hoos u dhacday ay arrintan u iibinaysaa ma heshiiskii Soomaaliya ay la gashay ee ku aadanayd difaaca ayay ku taagan tahay oo ay doonaysaa dawladda Sisi inay wali Soomaalida ay garab taagnaato Masar waxay rabtaa in Soomaalida ay bernugeel geliso ay tiraahdo war isku kay haleeya cid kale ma aamini kartaan ana idin badbaadinaya ila jooga sooyaalka taariikhdana dib u fiiri Masar marka xaalada qalafsan Soomaaliya gasho way garab taagnayd xalliyo kulkulul waliba haddana waxay muujinaysaa inay garab taagan tahay oo ay leedahay waxa dhacaya waa gooni laakiin aniga Soomaaliya laygama maro adiga aan ku weydiiyay adoo waliba xamaasi ka saaraya sheekada oo ku fiirinaya in diblomaasiyadeed kuwa amni danaha dawladuhu ay leeyihiin maxaa Masar ay fariintan wali u iibinaysaa